madaxweynaha dowladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad Sheekh Aadan Madoobe ayaa maanta kulan yeeshay lama garanayo ajandaha tooska ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo gudoomiyaha balse mawjadaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa sii dabaalanaya kulamo aan la garanayn markaas oo yeelanayaan ismaamul goboleedyada mucaaradka iyo sidoo kale xildhibaanada qayb ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la garanayn wajiga dhabta uu ku wajihi doono doorashada balse maanta ayuu kulan la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe taasoo la garanayn waxa tooska uu kala hadlay balse la arkay farxad iyo sawirro wanaagsan inay muujinayeen xildhibaanadii dhawaan laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo sidoo kale magaalada Garbaharey ayaa maanta kulankii baarlamaanka buuq ka sameeyay kuwaasoo xildhibaanadu ay sheegeen midba midka kale inuu isagu yahay xildhibaankii saxda ah kuwa Garbaharey laga soo doortay ayaa waxa dhawaan kaarasho u soo saxiixay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Mursal sidoo kale halka kale uu gudoomiye Dhabanacad uu saxiixay kuwa laga soo doortay Ceelwaaq lama garanayo xildhibaanadan sida saxda dhawaan loo kala xalin doono balse xildhibaanadan 16 iyo 16 kala duwan ee laga soo kala doortay goobaha Garbaharey iyo sidoo kale Ceelwaaq ayaa muran ka dhaliyay golaha shacabka dhexdiisa iyadoo midba midka kale uu isku tilmaamayay inuu yahay xildhibaanada saxda ee dhawaan sida tooska u matali doona meelaha laga soo doortay Soomaaliya ayaa mawjado siyaasadeed maalmahan dabaalanaysa iyadoo loo madlan yahay madaxweynaha Soomaaliya in la doorto bisha May dhexdeeda madaxweynayaashii hore dalka soo maamulay sidoo kale ismaamul goboleedyada kuwa ugu tuwan weyn ayaa maalmaha ugu dambeeyay sameynaya shirar ay markaa gooni u yeelanayaan iyagoo markaas group u saaxiibay halka la isku tuhumayo Qoorqoor iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cali Shakuur lama garanayo madaxweynaha dhabta ee Soomaaliya maamuli doona 4 sano soo socota balse saadaasha dadka Soomaaliya ka faalooda ay waxay u badinayaan madaxdii hore dalka u soo maamushay qayb kamid ah inay mar labaad hogaamin doonaan halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan la garanaynin shaxda uu markaa la soo tagi doono inuu mar labaad ku noqdo madaxweynaha dalka 4 sano soo socda maamula beesha caalamka ayaa maalmihii u dambeysay cidhiidhi ku haysay Soomaaliya taasoo ay Soomaaliya ku amartay in maalmaha soo socda doorashada lagu soo gabagabeeyo haddii kale ay kala laabanayso dhaqaalaha iyo sidoo kale deymihii hore loo cafiyay Soomaaliya ayaa isku dayaysay cidhiidhigan inay ka baxdo madaxweyne sax oo dalka hogaamiyay in la soo doorto bishan May dhexdeeda xaaladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay mid markaa gurubaysi iyo sidoo kale siyaasadda dhanka kale ay ka fiirinayaan kuwa doonaya danahooda gaarka ay noqotay Soomaaliya ayaa noqon doonta mid maalmaha soo socda madaxweyne yeelata balse lama garanayo qofka sida dhabta u matali doona 4 sano soo socda siyaasadda Soomaaliya ayaa moodaa inay lugaha la sii gashay inay madaxweyne doorato balse madaxweynayaasha hore dalka u soo maray sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa sidoo kale ku kala aragti duwan siyaasaddu siday u socoto kuwaasoo midba midka kale uu kulan la sameeyay xildhibaanada iyo sidoo kale ismaamul goboleedyada Soomaaliya waxay moodaa toddobaadkii u dambeysay inay shax siyaasadeed wanaagsan ay soo ciyaartay iyadoo mawjadaha siyaasadda dhexda baaranaysana inay ka cagarooto doonaysa midaas oo rabtay inay heer madaxweyne u gudubto xaaladda dalka ayaa maalmihii u dambeysay ahayd mid kacsan taasoo ay xildhibaanada iyo sidoo kale gudoonka golaha baarlamaanka shacabka dadka hogaamiya buuq badan iyo hor istaag ay ku sameeyeen ciidamada sida khaaska loo tababaray ee ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasoo dhanka kala taabacsan kuwa ra'iisul wasaaraha taabacsan iyo sidoo kale kuwa filla Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taabacsan